kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka waa janaalkeena udub Soomaali TV qodobada warkeena aan idinku soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona garaadka guud ee beesha dhulbahante oo sheegay inay waajib ay tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aamada uu qaadanayo la taageeray iyo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye cali masaarkiisa oo la diyaarinayay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo laascaanood ku wajahan maalmaha soo aadan sababta uu aadaya maxay tahay waxaan kale oo warkeena ku soo qaadan doonaa daawadayaal xiisada culus ee ka jirto qeybo ka mid ah deegaanada maamulka Somaliland iyo Cabdiraxmaan Ciro oo eedeyn xoogan u jeediyay dowladda Djibouti muxuu ku eedeynayaa wararkaas iyo warar kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka like iyo share iyo comment waa dhankiina aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya deegaanada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in isimada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ay si cad ee go'aan ugu qaateen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gaaro deegaanada maamulka waqooyi bari Soomaaliya sida wararka ugu dambeeya halkaas aan ku helayno wararka saacadihii la soo dhaafay aan helay ayaa waxay sheegayaan in xiisad culus ay taagan tahay xiisadan ayaa waxay noqotay mid saameyn fara badan ku yeelatay qeybaha kala duwan ee bulshada halkaasi bilihii la soo dhaafay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa beelaha dhulbaantay warsangeli cabashooyin aad u xoogan ay u gudbinayeen haddana waxaa la sheegay in garaad Ismaaciil uu hadda uu rabo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gaaro magaalada Laascaanood kadib markii garaadka iyo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ay heshiiyeen taasi oo noqotay mid hadalhayn badan dhalisay sidoo kale Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa waxaa la tilmaamay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh oo u soo diray waraaqad casuumaad ah uu ku imaanayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood ayaa martigelin doonto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo ay horey u martigelisay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa horey u tagay magaalada Laascaanood waxaana taasi ay noqotay mid hadalhayn badan dhalisay iyadoo ugu dambeyn maamul cusub oo waqooyi bari la yiraahdo halkaasi uu ka soo baxay hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayay casuumaad u direen reer waqooyi bari waxayna u sheegeen inuu ka soo qayb galo xafladda cali masaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo maalmaha soo socota ka dhici doonto magaalada Laascaanood inkastoo xafladda cali masaarka imaanshaheeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qorshe kale uu wato oo ah qorshaha lagu fasaxayo maxaabiis badan oo Somaliland ka soo jeeda iyadoona maxaabiistaasi uu ku jiro Faysal Cabdi Bootaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey baarlamaanka hortiisa ka sheegay in dhammaanba loo baahan yahay in wax waliba carqaladooyin ah oo jira la sii daayo isla markaana maamulka waqooyi bari Soomaaliya looga baahan yahay maxaabiista ay hayaan inay sii daayaan si faa'iido dalka uu u helo inkastoo taasi lagu micneeyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud yoolkiisa ugu weyn uu yahay in uu haddii uu ka qayb galay xafladda cali masaarka taasi muhiimadda koowaad ee u noqonayso Cabdiraxmaan Ciro ayaana tani waxa uu arkaa fursad muhiim ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud cali masaarka Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye waxaa kala qayb gali doona mas'uuliyiin fara badan oo ka mid yahay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo qaar badan oo ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre sidoo kale waxaa xataa laga yaabaa in gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe uu tago magaalada Laascaanood ayaa mar kale wafuud heer caalami ah martigelinayso iyadoo qabanqaabada xafladda Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye lagu caleema saarayo ay si weyn looga dareemayo guud ahaan magaalada Laascaanood inkastoo culaysyo xoogan isaga iyo garaad Ismaaciil uu ka dhaxeeyay khilaafkaasna hadda la soo gabagabeeyay waxaana socdo qabanqaabada xafladda cali masaarka madaxweynaha maamulkaasi dhinaca kale madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa eedeyn xoogan waxa uu u jeediyay wadanka Djibouti Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro ayaa waxa uu sheegay in gibi ahaanba dowladda Djibouti waxyaabaha ay wadeen u dul qaadan dooneen isla markaana ay ku xadgudbayso jiritaanka ummadda wadanka Somaliland sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in dowladda Djibouti looga baahan yahay inay dowlad wanaagga ilaaliso haddii taasi ay jabhadda oodol ay ku garab siinaysan ay sii wadana cawaaqib xumo aad u adag ay kala kulmi doonaan
maxaa dhici kara haddii Jabuuti iyo Somaliland ay isdagaal u ka dhex qarxo? Somaliland ayaa dhibaato xooggan kala kulmi karto, isla markaana culayskii ugu xoogganaa ayay arki doonaan ciidanka Somaliland iyagoo u babaacdhigi waayay ciidanka beelaha Harti. Hadda waddan dhan oo Jabuuti ah oo ciidan xooggan leh, Soomaaliyana ciidamadiisa qayb ka mid ah ay joogaan, haddii ay isfarasaaraan Somaliland ayaa dhib qabi doonto. Cabdiraxmaan Cirrona go'aankiisa ugu weyn waxa uu yahay inuu la dagaalamo dowladda Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay garab siinayso jabhadda Awdal oo ka soo horjeeda hanaan siyaasadeedka madaxweynaha maamulkaasi Cabdiraxmaan Cirro. Cabdiraxmaan Cirrona waxa uu si cad u sheegay inuusan marnaba rabin in Jabuuti ay sii joogto, isla markaana xuduudda, isla markaana ciidanka Jabuuti ay hub ay siiyaan jabhadda Awdal State la yiraahdo. Go'aanada masiiriga ah ee maamulka Somaliland ayaa noqon doona mid culays xooggan mar kale dhexda ay ka geli doonaan, inkasta oo madaxda maamulka Somaliland ay doonayaan inay tallaabooyin adag oo ka dhan ah maamulka Awdal State ay qaadaan, inkasta oo maamulkan la sheego in taageero badan uu ka haysto madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geyle. tanna waxay u muuqanaysaa in culays xooggan ay ku yeelanayso jabhadaha kala duwan ee sida weyn uga soo horjeeda hanaan siyaasadeedka Cabdiraxmaan Cirro. dhinaca kale, daawadayaal, wararka ugu dambeeya ee aan ka helayno qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in maamulka Puntland madaxweynahooda oo taatiko cusub uu la ciyaarayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wararka ugu dambeeya aan helayna ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland midba midka kale uu wajiyo cusub oo siyaasadeed uu la soo baxayo. saacadihii la soo dhaafay wararka aan helayna waxay tilmaamayaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo khilaaf cusub uu mar kale ka dhex qarxay. khilaafkaasi ayaana dhaliyay hadalhayn aad u xooggan. wararka ugu dambeeyana aan helayna ayaa waxay sheegayaan in xiisadda siyaasadeed ee madaxda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay noqonayaan kuwa aad u adag, iyadoona Siciid Cabdullaahi Dani uu rabo in Axmed Madoobe si weyn loo garab siiyo, isla markaana lala shaqeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland. Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ayaa labadoodaba waxa dana waaweyn ay ka leeyihiin mustaqbalka Soomaaliya inuu mid kastaba uu helo xilka ugu sareeya ee dalka. laakiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Dani ayaa yoolkooda ugu weyn waxa uu yahay in ay sii laba jibaaraan colaadinta joogtada ah ee ku hayaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aaminsan in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Siciid Dani taatikada ay ciyaarayaan ay tahay mid qaldan ayaa si weyn kaga fikiraya waxa uu mustaqbalka dhow sameeyo. saacadihii la soo dhaafayna xiisadda ayaa aad u sii kordhaysay, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xitaa laga yaabo inuu baaqdo safarkii uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa xog hoose aan helnay waxay sheegayaan in heshiis halis ah ay galeen. heshiiskaasi ayaana waxaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada uu geynayo Kismaayo la xadido, isla markaana ciidamadaasi gibi ahaanba aynan wax dhaqdhaqaaq ah ayna sameyn. tanna waxay ka dhigan tahay in xiisadii ay fashilantay, wax waliba xaalad adag ahna ay jiraan. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena Udub Somali TV saaxiibayaal waa naga inta. daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, like iyo share iyo comment waa dhankiina. waa mahadsantihiin, nabadgelyo.